jasiiradda Lamu oo u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya kana tirsan gobolka xeebta waxa ay 341 kiiloomitir dhanka waqooyi bari ka xigtaa magaalada Mombasa waana meel dadkeedu ay u badan yihiin muslimiin. waxaa la sheegayaa in shabaabku ay dadka muslimiinta qaar ku wacyigeliyeen inay iyaga la shaqeeyaan waxaana taasi marqaati ka ah markasta oo al-shabaab jasiiraddan ay weeraraan ma dilaan dadka muslimiinta ah. dadka darsa arrimaha amniga ayaa ku fasiray tallaabada shabaab ay ku dilayaan dadka aan muslimka ahayn kuna sii deynayaan muslimiinta mid abuuraysa nacayb muslimka loo qaadayo maadaama dalkaasi ay ku wada nool yihiin dad muslima iyo kuwa kiristana oo dalka uu ka dhaxeeyo. waxaa la aaminsan yahay in Kenya ay nasiib darro weyn ku tahay iyadoo ciidamadeeda gudaha Soomaaliya ay ka wadaan howlgal ka dhan ah al-shabaab in haddana shabaabku wixii ay rabaan ay ka samaystaan magaalooyinka dalkaasi. aan soo qaato bartamihii bishii hore ee Juun dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday magaalada Mabakatoni oo ka tirsan jasiiradda Lamu. waxaa weerarkaasi ku geeriyooday in ka badan 65 qof. sidoo kale 5tii bishan xilli habeen ah shabaabku weerar kale ayay ku qaadeen isla deegaano ka tirsan jasiiradda Lamu halkaasi oo ay ku toogteen in ka badan 30 qof oo ay ku jireen dalxiisayaal ajnabi ah. labadaasi weerar ee al-shabaab ay ka geysteen gobolka xeebta muddo 20 cisho gudahooda ayaa ka dhigan in Kenya ay dhibano u noqotay shabaabka Soomaaliya ka dagaalama. dilalka iyo qaraxyada shabaab ay ka fulinayaan meelo ka mid ah Kenya iyagoo dhiiranaan ay ku jirto waxa ay kala shaki ku dhex abuureen saraakiisha ciidanka oo qaar lagu eedeeyay inay caawiyaan al-shabaab. sidoo kale gudoomiyaha jasiiradda Lamu ayaa dhawaan ay maxkamad xukun ku riday kadib markii lagu helay inuu shabaabka u fududeeyay weeraradii ay ku qaadeen gobolka xeebta. madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo shalay tagay meelihii ugu dambeeyay ee la weeraray ayaa canaantay taliyaasha hay'adaha amniga oo uu ku amray in 48 saac gudahood ay ku soo qabtaan xubnihii weeraradaasi fuliyay haddii kalena taliyaashu ay iscasilaan oo ay shaqada ka tagaan. waana culays kale oo taliyaasha iyo saraakiishu ay ku qabaan al-shabaab. waxaa hubaal ah in al-shabaab ay dabacsanaan dhanka ciidanka ah ka arkeen deegaanada xeebta ee ay weerarada ku qaadeen balse tallaabooyinka al-shabaab xitaa dhaqaalihii Kenya ayay hoos u dhigeen sababtoo ah waxaa faraha ka baxay amniga gobolkii ay tegi jireen dalxiisayaasha oo dalku qarash badan ka heli jiray. qubarada dhinaca amniga ayaa arrintan u sababeynaya in Kenya aanay khibrad badan u lahayn la tacaalidda kooxaha al-shabaab oo kale ah iyo in musuqmaasuqa uu ku badan yahay askarta dhexdooda. haddaba dowladda Kenya oo dhibano u noqotay al-shabaab howl adag ayaa hortaala waayo waxaa la ogyahay in shabaabku hadda caskariyan iyo mabda ahaan ay ugu dhex milmeen deegaanada ay muslimiinta degaan ee waddankaas.